muddo 2 toddobaad waxa ku xidhan magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil 3 doonyood gaar ahaan dekeda kalluumaysiga Nagfishta loo yaqaano aageeda 3 doonyood oo la sheegay inay ka yimaadeen deegaanka Ayl ee Puntland ayaana hadda ku sugan magaalada xeebta Berbera waxaana wararku sheegayaan inay sidaan kalluun badan oo ay rabaan in laga dhoofiyo dekeda magaalada Berbera hase yeeshee aanay sidan ruqsadii ganacsi ee ay kalluunkan ku dhoofin lahaayeen geesta kale xogaha ka soo baxaya dadka u dhun daloola ganacsiga kalluunka ayaa sheegay sababta ugu weyn ee ay doonyahani u yimaadeen Berbera inay tahay kalluunka ay sidaan oo la rabo in lagu guro konteenarada leh barafka amaba qaboojiyayaasha leh maadaama wadanka dibadiisa loo dhoofinayo waxaana uu imaatinkoodani la sheegay in uu salka ku hayo maraakiibta xambaara konteenarada qaboojiyayaasha leh oo aan tegin Puntland inkasta oo aan ilaa imika laga warbixin sababta rasmiga ah ee doonyahani ay halkani u joogaan Cabdiraxmaan Maxamed Cige telefishinka caalamiga ee SAB TV magaalada xeebta Berbera